shacabka degmada Owdigle ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa go'aan culus ka qaatay ama ra'yi soo rogeen ururka Al-Shabaab inta ugu badan shacabka ku nool degmada Owdigle ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka soo horjeedsaday ama ra'yi dul dhigeen dagaalamayaasha Al-Shabaab ee dhawaan laga saaray degmadaasi oo ay kala wareegeen ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed. Al-Shabaab ayaa dadka deegaanka ku amray in ay ka baxaan degmada mar haddii ay gacantooda ka baxday sidoo kalena aan waxba laga iibsanin ciidamada dowladda ee qabsaday iyo in aan lala samaynin wax macaamil ah balse dadkii deegaanka ayaa la sheegay in ay isku raaceen in amaradaasi oo dhan laga soo horjeesto. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta militariga Soomaaliya ee ku sugan degmada ayaa saxaafadda u sheegay in degmada ay ku nool yihiin dad adag oo go'aan leh isla markaasina ay diideen in ay u hoggaansamaan amarada ka yimid Al-Shabaab ee ahaa inaan ciidamada militariga Soomaaliya waxba laga iibinin lalana macaamilin isdhexgal lala yeelan. sidaasi darteed ayay shacabku qaateen in ay ciidamada la macaamilaan isla markaasina ay soo dhoweeyaan maadaama oo ay tahay dowladoodii sida ay hadalka u dhigeen qaar ka mid ah shacabka oo hadlay. shacabka waxay isku raaceen in aysan u hoggaansamaynin amarada Al-Shabaab iyo cunaqabatayntooda waana bulsho adag oo ay ka go'an tahay dowladnimada iyo nabadgelyada ayuu yiri sarkaal ka tirsan militariga Soomaaliya oo ku sugan Owdigle. saxaafadda ayuu u sheegay in dadka deegaanka ay ka shaqo badan yihiin ciidanka deegaanka ku sugan isla markaana ay sameeyeen isxilqaan amni oo gaar u ah inkasta oo ay qabaan walaac amni oo ah markii ay dibadda ka aadaan degmada Owdigle ee gobolka Shabeellada Hoose. Al-Shabaab ayaa horay amar dhaqan galay u daldhigay dhammaan shacabka ku nool goobaha ay la wareegeen ciidamada Soomaaliya waxaana kii ugu dambeeyay uu ka dhaqan galay deegaanka Bariire ee u dhow degmada Afgooye ee gobolkaasi Shabeellada Hoose. inkasta oo haddana shacabku ay xiriir la leeyihiin ciidamada dowladda ee qabsaday deegaamadaasi haddana cabsi xooggan ayay ka qabaan Al-Shabaab oo shacabka uga digay in ay la macaamilaan ciidamada dowladda oo ay ganacsiyada ka gataan. sidaasi darteed shacabka cabsi badan ayaa haysa balse haddana way ku dhex milan yihiin wayna la macaamilaan ciidamada halkaasi ku sugan. dhanka kale waxaa goordhow magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ka ambabaxay ciidamo lagu tababaray magaaladaasi oo u dhaqaaqay dhanka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedkaasi Galmudug. qaadista ciidamadan oo uu muran ka taagnaa muddooyinkii dambe ayaa hadda xal laga gaadhay iyada oo ugu dambeyn lagu guuleystay in ay u safraan dhanka Dhuusamareeb. odayaasha dhaqanka Beledweyne ayaa horay uga biyadiiday in ciidamadaasi la geeyo Galmudug iyaga oo sheegay in baahi weyn oo amniga ah ay ka jirto gobolka Hiiraan sidaas darteedna aysan ahayn in ciidamada meel kale loo qaado. arrintan ayaa dhalisay xiisad xooggan oo u dhaxaysa saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo odayaashaasi taasi oo haatan la xaliyay. ciidamadani ayaa la sheegay in ay ka howlgali doonaan magaalooyinka waaweyn ee Galmudug iyaga oo ka shaqeynaya nabadgelyada deegaanadaasi lagu qoray. dhawaan ayaa la filayaa in doorasho ay ka dhacdo Galmudug taasi oo ay qabanqaabinayso dowladda federaalka Soomaaliya oo ku dadaalaysa sidii madaxweyne dowladda ay isku xidhan yihiin loogu dooran lahaa maamul goboleedkaasi Galmudug. warar aan ka helayna magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa sheegaya in madaxda ugu sarreysa ee dowladda Soomaaliya ay isku raaceen in la xili karo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe labadiisa ku xigeen iyo saraakiil kale oo ka tirsan maamulkaasi. xubno ka tirsan hay-adaha ammaanka Soomaaliya oo arrintan ka hadlay ayaa sheegay in amar lagu siiyay qofkii xil ka haya Jubbaland oo soo mara magaalada Muqdisho in ay xiri karaan sida wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo isagu u xiran dowladda federaalka Soomaaliya isaga oo laga qabtay garoonka magaalada Muqdisho xilli uu safar ugu jeeday dowladda dalkaasi Itoobiya oo ay Jubbaland ku macnaysay in uu ahaa shirqool asaga loogu shirqoolahayay ee aysan jirin Itoobiya ballanka dhab ah oo ay ugu yeedhay balse si been ah ay iyagu u waceen. amarkan ma ahayn mid cusub balse baaritaano aan wadnay maalmahana waxa ay ku soo ogaanay in markii la amray in diyaaradaha Kismaayo ka baxa iyo kuwa ku socda ay soo maraan magaalada Muqdisho ciidamada in lagu amray in la xidho madaxweynaha Jubbaland iyo labadiisa ku xigeen iyo waliba dhowr qof oo kale oo ay ku jiraan wasiirada iyo xildhibaanada iyo saraakiil ka tirsan maamulkaasi. lama ogo sida ay arrintan gali karto balse waxaa jirta warar sheegaya in Axmed Madoobe uu Kismaayo uga bixi karo oo kaliya dhinaca badda inta uu kala heshiinayo dowladda Soomaaliya oo la sheegay in ay raadinayso fursad ay ku qabato isaga.
axmed madoobe ayaa sidoo kale awooda in uu raaco diyaaradaha helikobtarka ciidamada kenya oo aan u baahnayn in ay xiriir la sameeyaan hay-adaha duulista kuna tegi kara nairobi iyo meeshii kale ee ay u socdaan. dowladda federaalka soomaaliya ma awoodo in ay axmed madoobe kasoo qabato kismaayo maadaama ay halkaasi joogaan ciidamo awood leh oo maamulkiisa ka amar qaata, balse ay doonayso in ay ku qabato muqdisho markii uu soo maro isaga oo taransid ah sida wasiir janan loo qabtay oo kale, taasi oo u muuqata in ay fashilantay. haddana aysan suurtagal ahayn in axmed madoobe uu soo wajaha muqdisho isaga oo og halka uu maraya khilaafka u dhexeeya labada dhinaca, taasi oo muuqata axmed madoobe in uu ka gaashaamanayo uusan muqdisho soo maraynin, dowladuna arrintaasi hadda ay ku baraarugsan tahay. caleemasaarka madaxweynaha maamulkaasi jubbaland axmed madoobe oo doorashadiisii si weyn loogu murmay ayaa la sheegayaa in la qaban hayo 26 bisha Sebtembar ee aan ku jirro, inkasta oo saasaanta muuqata ay suurtagal ka dhigi karto in uu dib u dhaco caleemasaarkaasi maadaama oo dowladdu ay amartay in diyaaradaha u socda Kismaayo ama kasoo duulahaya in ay soo maraan magaalada Muqdisho. arrintaasi oo dhabarjab weyn ku noqotay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam. dadka la aaminsan yahay in ay kasoo qaybgalahayaan caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa waxa ugu horeeya madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani, ayadana wuxuu shaki ka jira in Siciid uu soo marayo magaalada Muqdisho iyo in uu toos u aadayo magaalada Kismaayo, inkasta oo dowladdu aysan sheegin in diyaaradaha kasoo duula Puntland ay soo maraan Muqdisho, balse waxaan iyaguna isku fiicnayn Siciid Cabdullaahi Dani iyo dowladda federaalka Soomaaliya. balse markii dhinaca laga fiiriyo madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland maadaama oo aysan midkoodna xiriir wanaagsan lahayn dowladda, waa suurtagal asagana in ay isku daydo in ay xidhaan haddii ay jaanis ka helaan. shacabka degmada Owdigle ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa go'aan culus ka qaatay ama ra'yi soo rogeen ururka Al-Shabaab. inta ugu badan shacabka ku nool degmada Owdigle ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa kasoo horjeedsaday ama ay dul dhigeen dagaalamayaasha Al-Shabaab ee dhawaan laga saaray degmadaasi oo ay kala wareegeen ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed. Al-Shabaab ayaa dadka deegaanka ku amray in ay ka baxaan degmada mar haddii ay gacantooda ka baxday, sidoo kalena aan waxba laga iibsanin ciidamada dowladda ee qabsaday iyo in aan lala samaynin wax macaamil ah, balse dadkii deegaanka ayaa la sheegay in ay isku raaceen in amaradaasi oo dhan laga soo horjeesto. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta militariga Soomaaliya ee ku sugan degmada ayaa saxaafadda u sheegay in degmada ay ku nool yihiin dad adag oo go'aan leh, isla markaasina ay diideen in ay u hoggaansamaan amarada ka yimid Al-Shabaab ee ahaa inaan ciidamada militariga Soomaaliya waxba laga iibinin lalana macaamilin isdhexgalla lala yeelan. sidaasi darteed ayay shacabku qaateen in ay ciidamada la macaamilaan isla markaasina ay soo dhoweeyaan maadaama oo ay tahay dowladoodii, sida ay hadalka u dhigeen qaar ka mid ah shacabka oo hadlay. shacabka waxay isku raaceen in aysan u hoggaansamaynin amarada Al-Shabaab iyo cunaqabatayntooda, waana bulsho adag oo ay ka go'an tahay dowladnimada iyo nabadgelyada, ayuu yiri sarkaal ka tirsan militariga Soomaaliya oo ku sugan Owdigle. saxaafadda ayuu u sheegay in dadka deegaanka ay ka shaqo badan yihiin ciidanka deegaanka ku sugan, isla markaana ay sameeyeen isxilqaan amni oo gaar u ah, inkasta oo ay qabaan walaac amni oo ah markii ay dibadda ka aadaan degmada Owdigle ee gobolka Shabeellada Hoose. Al-Shabaab ayaa horay amaro dhaqan galay u daldhigay dhammaan shacabka ku nool goobaha ay la wareegeen ciidamada Soomaaliya, waxaana kii ugu dambeeyay uu ka dhaqan galay deegaanka Bariire ee u dhow degmada Afgooye ee gobolkaasi Shabeellada Hoose. inkasta oo haddana shacabku ay xiriir la leeyihiin ciidamada dowladda ee qabsaday deegaamadaasi, haddana cabsi xoogan ayay ka qabaan Al-Shabaab oo shacabka uga digay in ay la macaamilaan ciidamada dowladda oo ay ganacsiyada ka gataan. sidaasi darteed shacabka cabsi badan ayaa haysa, balse haddana way ku dhex milan yihiin wayna la macaamilaan ciidamada halkaasi ku sugan. dhanka kale waxaa goordhow magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ka ambabaxay ciidamo lagu tababaray magaaladaasi oo u dhaqaaqay dhanka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedkaasi Galmudug. qaadista ciidamadan oo uu muran ka taagnaa muddooyinkii dambe ayaa hadda xal laga gaadhay, iyada oo ugu dambeyn lagu guuleystay in ay u safraan dhanka Dhuusamareeb. odayaasha dhaqanka Beledweyne ayaa horay uga biyadiiday in ciidamadaasi la geeyo Galmudug, iyaga oo sheegay in baahi weyn oo amniga ah ay ka jirto gobolka Hiiraan, sidaasi darteedna aysan ahayn in ciidamada meel kale loo qaado. arrintan ayaa dhalisay xiisad xoogan oo u dhaxaysa saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo odayaashaasi, taasi oo haatan la xaliyay. ciidamadani ayaa la sheegay in ay
ka howlgeli doonaan magaalooyinka waaweyn ee galmudug iyaga oo ka shaqaynaya nabadgelyada deegaanadaasi lagu qoray. dhowaan ayaa la filahayaa in doorasho ay ka dhacdo galmudug taasi oo ay qabanqaabinayso dowladda federaalka soomaaliya oo ku dadaalaysa sidii madaxweyne dowladda ay isku xidhan yihiin loogu dooran lahaa maamul goboleedkaasi galmudug. warar aan ka helayna magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa sheegaya in madaxda ugu sarreysa ee dowladda soomaaliya ay isku raaceen in la xili karo madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe labadiisa ku-xigeen iyo saraakiil kale oo ka tirsan maamulkaasi. xubno ka tirsan hay-adaha ammaanka soomaaliya oo arrintan ka hadlay ayaa sheegay in amar lagu siiyey qofkii xil ka haya jubbaland oo soo mara magaalada muqdisho in ay xiri karaan sida wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan oo isagu u xidhan dowladda federaalka soomaaliya isaga oo laga qabtay garoonka magaalada muqdisho xilli uu safar ugu jeeday dowladda dalkaasi etoobiya oo ay jubbaland ku macnaysay in uu ahaa shirqool asaga loogu shirqoolahayay ee aysan jirin etoobiya ballanka dhab ah oo ay ugu yeedhay balse si been ah ay iyagu u waceen. amarkan ma ahayn mid cusub balse baaritaano aan wadnay maalmahana waxa aan ku soo ogaanay in markii la amray in diyaaradaha kismaayo ka baxa iyo kuwa ku socda ay soo maraan magaalada muqdisho ciidamada in lagu amray in la xidho madaxweynaha jubbaland iyo labadiisa ku-xigeen iyo weliba dhowr qof oo kale oo ay ku jiraan wasiirada iyo xildhibaanada iyo saraakiil ka tirsan maamulkaasi. lama ogo sida ay arrintan geli karto balse waxaa jirta warar sheegaya in axmed madoobe uu kismaayo uga bixi karo oo keliya dhinaca badda inta uu kala heshiinhayo dowladda soomaaliya oo la sheegay in ay raadinayso fursad ay ku qabato isaga. axmed madoobe ayaa sidoo kale awooda in uu raaco diyaaradaha helikobtarka ciidamada kenya oo aan u baahnayn in ay xiriir la sameeyaan hay-adaha duulista kuna tegi kara nairobi iyo meeshii kale ee ay u socdaan. dowladda federaalka soomaaliya ma awoodo in ay axmed madoobe kasoo qabato kismaayo maadaama ay halkaasi joogaan ciidamo awood leh oo maamulkiisa ka amar qaata balse ay doonayso in ay ku qabato muqdisho markii uu soo maro isaga oo taransid ah sida wasiir janan loo qabtay oo kale taasi oo u muuqata in ay fashilantay haddana aysan suurtagal ahayn in axmed madoobe uu soo wajaha muqdisho asaga oo og halka uu maraya khilaafka u dhexeeya labada dhinaca taasi oo muuqata axmed madoobe inuu ka gaashaamanayo uusan muqdisho soo maraynin dowladduna arrintaasi hadda ay ku baraarugsan tahay. caleemasaarka madaxweynaha maamulkaasi jubbaland axmed madoobe oo doorashadiisii si weyn loogu murmay ayaa la sheegayaa in la qabanhayo 26 bisha sebtembar ee aan ku jiro inkasta oo saasaanta muuqataa ay suurtagal ka dhigi karto inuu dib u dhaco caleemasaarkaasi maadaama oo dowladdu ay amartay in diyaaradaha u socda kismaayo ama kasoo duulahaya in ay soo maraan magaalada muqdisho arrintaasi oo dhabarjab weyn ku noqotay madaxweynaha maamulkaasi axmed maxamed islaam. dadka la aaminsan yahay in ay kasoo qaybgalahayaan caleemasaarka madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa waxaa ugu horeeya madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayadana wuxuu shaki ka jira in siciid uu soo marayo magaalada muqdisho iyo in uu toos u aadayo magaalada kismaayo inkasta oo dowladdu aysan sheegin in diyaaradaha kasoo duula puntland ay soo maraan muqdisho balse waxaan iyaguna isku fiicnayn siciid cabdulaahi deni iyo dowladda federaalka soomaaliya balse markii dhinaca laga fiiriyo madaxweynaha puntland iyo jubbaland maadaama oo aysan midkoodna xidhiidh wanaagsan lahayn dowladda waa suurtagal asagana in ay isku daydo in ay xidhaan haddii ay jaaniska helaan.